بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشركي أفراد حارون تحرور مانتا تدوب بلاد كور بشي لحاد بشي تدوبات سنة كي هراء وحا عن دي لو ذاقي مرحلة أدونك ويران تدوبا موقال وحان كسمي مرحلة أدونك إنو دقال وين صوص صعدو إسلام مركاسنا إنو باهان هينين ديار قرونو مسكحان ديار قرونو jir ahaan u diyaar garowno jirkeena dhisno dhaqaalan ahaana u diyaar garowno bariis oo kala iibsano saliid oo kala sii iibsano dadka saliidda isticmaala anuma isticmaalo saliidda caagada biyo ku shubanno waxaa laga yaabaa inuu biyuhu go-aan la diyaar garoobo marka nimankii reer galbeedka ahaa waxa ay go-aan ku gaadheen inay dagaal kala qaadaan 2 sano iyo 4 bilood bay hortaada aad daawanaysa ay rag iyo dumar ciroole iyo caruur mid wax bartay iyo midaan wax baranba ay isku raaceen inay gumaadka khasusii socdo 72,000 oo qof oo 70% ay yihiin taa macnaheedu waxa ay tahay dadka ugu badan 72,000 oo qof waa caruur iyo dumar dadkaas in gumaadku la sii wada mooyaane idaacadaha BBC-da CNN-ta ITV-ga Channel 4-ka uleyga muxuu ahaye Sky News-ka MSNBC-da Fox News-ka Netherland-kowga labada TV-ga Belgium-ka Jarmalka RTL-ka waxoo dhan waxa ay dadkaas waxay yidhahdeen waxba nagama geliya waaba dadkaas hayna dhaafaan haddaad u fiirsatay aad akhriday waraaqihii Epstein faylashiisii soo baxay Bill Gates ninka Afrika aan uga digayay 20 sano ugu dambeeyay Bill Gates la yiraahdo iyo Jeffrey Epstein waxa ay ka wada hadlayeen waraaqaha qaarkood sida dadka faqiiriinta looga takhaluso kaniin la siiyo la laayo dadka Afrika ee masaakiinta waxbaysan adduunka waa inay khayraadka waddanka khayraadka leh si aynu uga qaadno si aynu uga takhalusnaa bay ka wada hadlayeen waa ninka ku yidhaahdo caruurtaada waxaan siiyaa talaal war talaalka iska ilaaliya marka dagaal weyn baa soo socda dagaalkana waxaa lagu kala baxayaa qasi waxa weeye qasi mar damba ma soo noqonayso arrintii qasi ka dhacday gumaadkii aad daawanaysay ilaahayna wuu ku weydiinayaa waa la kala baxay waxaa loo kala baxay xaq iyo xaq darro daacad iyo daacad darro marka adigu waxaad isweydiisaa keebaad raacday adduunka kaasaa loo kala baxay aakhirana waa la isweydiinayaa qofkii dulmiga daawanayay ee lahaa sabaayadda iisoo dhiib baastada iisoo dhiib xaflad aroos baa jira caruurta yaree qasa ku dhimatay ilaahay oo naxariiste aroos baynu tegaynaa waxaad ogaataa haddii aad tiri damiirkaaga uu ku siin waayo intaad adduunka joogtay aakhiro waa la isweydiinayaa taasi wada adduunka waxa soo socda dhibaato weyn nimankii reer galbeedka dagaal kale ay qaadayaan way urursadeen way isku wada raaceen waqooyiga Maraykanka iyo Yurub iyo Australia New Zealand iyo carabta munaafiqiintii horeba way isku raaceen in Iiraan lagu duulo marka maxaad ku diyaar garowday markuu dagaalku dhaca sida ciyaalkii maxaan qabtaa maxaan xagaynu ka dhacnaa raashin caruurta ma haysato ayaad odhanay maad diyaar garoobinay maxaad samayn marka waxaad samayn doontaa sida caruurtu marka ay xanaaqaan ee ooyaan ayuunbaad ooyi doontaa waayo maskaxdaada sanadihii lasoo dhaafay ma dhisin warka iska daa war buugaag akhri war culumta dadka wax bartay wax weydii taariikhda akhri qur-aanka ku dheganow si maskaxdaada u dhisanaato marxalad kastoo ku soo martaa aad xal u hesho waayo marxalad kastoo jirtaa xal ayaa jira waynu diidnay taa bulshadaynu way diiday taan u isticmaalo igama maqlaysid anigoo magac kusoo qaadanaya mooye Somaliland iyo Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed baan isticmaalaa dadka Soomaaliyeed waayo bulshada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in la bedelo isbedel weyn bay u baahan tahay xagga hoose laga soo bilaabo sidaas darteed waxa aan u qoray 5 sano ka hor baan qoray buugga caruurta Soomaaliyeed sida maskaxda looga dhiso cutubka ugu horeeya waa hooyada
mas-uulka hooyadu ay leedahay ay aanay ka soo bixin hooyada yurub joogta badankeedu. aabbuhu khayra mas-uul buu noqday yurub jooga boqolkiiba 99.9, waayo isagaa guursada gabadh aan hooyo u qabnin buu guursanaya. anigu dumarka ee dhama saaro, badanka waxaan saaraa ragguna markay yidhahdaan gabadha way igu xumaatay markaan yurub keenay, waxaan ku idhahdaa been baad isu sheegaysaa, beenaalihiibaa been isu sheegayso ee adaa qaladka iskale. gabadhan soo adigu maa dooran, haa. soo lacag maad gelin, haa. adigu is eedee, adigu ayaa waxba ka aqoon dumarka. marka isaga laftiisii baan waxba aqoon, isaga laftiisii baan xaquuqdii gabadha kasoo baxahayn. marka marxaladda adduunku way adag tahay. waxbaynu daawanaynay, wixii aad daawanaysay waxba kuumay tarin, waayo waxaad daawataa waxba kuuma tarayo. waxaa wax kuu taraya waa waxa aad ku tacabto oo wax dhidid aad u soo marto. haddii cilmigu uu iska imanayo, muuqaal aad daawata uu ku imanayo, dad baa soo daawaday intaasoo kun oo muxuu ahaayey muuqaal soo daawaday. marka cilmigu wuxuu ku yimaada tacab, fikir, keli joogis, wax isweydiin, macallin qabsasho, wax akhris, isku buuqis waxaan ka wadaa isweydii su-aalo. isku buuqisti kale kama wada dee tan caadiga waxaan ka wadaa tan markaad cilmiga baarayso waa inaad halkii hore maskaxaada ka soo baxdo. marka maskaxaada waxay isweydiinaysa intaasoo su-aalood waa maxay waxaan. marka marxalad baa lagu jira adduunka. dagaalkana waa dagaalkii laga yaabo waa dagaalkii ugu dambeeyey adduunka, waayo xaq baa loo kala baxaya iyo xaq darro. marka waxaad isweydiisaa noloshaada dib u eego, ma xaq waan ahaa mise xaq daraan ahaa? maxaan noloshaydii muxuu ahay cadaaladda uga hadli waaye? marxaladdan maanta ah maxaa halkan keenay adduunka? haddii aan cadaaladda ka hadlo, halkan adduunku miyuu iman lahaa? taasaad u bahanta inaad isweydiiso. waayo qofku waxaan idhaahdaa laysu leeyahay isxisaabi intaan lagu xisaabin. aniga xasuus qorkayga habeen kastaan qoraa waa isxisaabin.